أنا واحد جمنا سعودي عربية جارهان جد حافظ الرياضة جمنا قميصي تنبني صومال نقصوا خيانة نقصوا مركا مشى نبكين أفر الوقت ساعة قميصي تمي أوليا فوضي نالين الحوان نبكين dhibaatooyinkaas aad la kulanteen haddii aan mid u kala qaadno gabdhaha la kufsaday oo aad noo sheegtay oo idinka midka waa imise ruux أبواب الصومالية وما تروح أركض صدري كررت موقود جيران بدنا وحوا إندونيسيان كي يكون كلام مساكين شيء أركض الصومالي إنك ضد سكول حرن إيه ما أنت لكن جدّا جو بدين إنه حفرت نيد سكان هالمرة وجوهنا هيتهان هاي marka walaal meeshaan aan ku jirnaa dadkeena ehelkeena waxba nagama oga telefoon nolama ogolahay 24 saac niman oo 20 jiryaal waaweyn inaan qolal nagu soo xirtaan tumaayeen sida ari oo kale marka shaqada markii hore la idin geeyay dalka Sacuudiga la idin sheegay maxay ahayd anaga awal shaqada Soomaali ko nala soo bandhig waxaana la dhahay Soomaaliya saana jirto program waxa 24 saac istiraha ku noolaanaysiin waa soo shaqaysanaysiin 2 sano waa hal sano waa soo laabanaysiin qalbin oo fasaxa nilsiina xajika niligeena waxwo ni gumeysanaay malahan telefoonaa nilsiya maalinta garoonka nigil dejinay dadka oo carab ani kala wadanaysa gurihiin ni kala geesanaysa dadka aan la dhahay haye marka xagga marka aad tagteen oo la idin geeyayna maxaad la kulanteen xagga marka aad tagno maalinta garoonka soo degeynay haye maalinta garoonka soo degeynay waxaa gabdho badan 22 ruux adilaba group waa nala soo kala wada group way naga soo horreeyeen groupna way dambeeyeen ani groupka dambe ku jiray maalintii nala soo wadin waxaa la kulanaba inaa gumeysi sida nala soo wada guriga nagu xiray haye guri saddex dabaqo saddex diyaana nagu xiray moobeelada soo aruuriya nala dhahay moobeeladii wadamadeena kasmaan nolosha ku jirna nagala qaaday haye bas markii daba moobeelada nagala qaadan gabdhiida moobeelada dhiibay maxaa waay meeshaan maxaa waay shaqo guriga sugayna qof walba markoo dhaani ماشي أفر الوقت تاع قميص سوحي السيد أنا قلت كذي لأن الله تعادي أنا قلت شو أدي قوون قلت شو أنا لطمة واقرتي مركا حرادة aad ku jirtaan maxaa lagu qabtaa idinka markii subaxdii aad soo toostaan maxaad qabataan ma la idin tababaraa ma shaqo sugayaal baa tihiin maanta dhan niman inaado carab le dhex joogaan wax Soomaali ama wax safaarad oo noo dhex joogan mala maalinta nil soo wadaan waxaan dhaldaa Soomaaliya meesha joogto safaarada joogto dad oo waxa tiin oo qaraabo oo micnaha oo madax soo dirtay cid wax leedin karta malaan ilaa hadana wax Soomaali sheena masaar Soomaali magaceeda ku diimoonaago mucaamilka dadka cumaasha ah ee lagu dhaqmo wadanka Sacuudiga inay ma aragtay aad u hooseyso taas waxa ka sii daran waxyaabo kale oo xadgudub ah ayaa ka dhaca xadgudubkaas oo gaarsiisan ilaa la dilo oo waxna loo raacan marka waxay la tahay annaka gabdhahan waa sharafkeeni waa karaamadeenni caa'ilada guriga gabadha ayaa sharafkii caa'ilada haysa karaamadii ummadana ayada haysa marka gabdhahan in lagu farxumeeyo oo lagu dulaysto wadanka Sacuudiga annaku raalli kama noqon karno dawladana waa ka xunnahay meeshaas inay qatif ka gashay inay ka noqoto intaan la gaarin intaan kumayaal ayna dhibaato la kulmin oo laga soo tuurin dabaqyo oo lugaha laga xirxiran sidii adoomadii midan jaamacadda carabta waxay la tahay jaamacadda carabta haday sharci leedahay sharcigaas inuu dhowray ahayd laakiin waxaa muuqata jaamacadda carabta inayba noo haysan inaan jaamacadda carabta ka tirsannahay tani runtii anaga qayladaanteeda maalmahanbo dhigayna ay ku soo dhacaysay maadaama arrin nagu cusub oo uguba ay ahayd hablo Soomaaliyeed oo shaqo siin wadamo kale oo weliba dunida carabta gaar ahaan boqortooyada Saudi Arabia in loo qaado halkaasna kafiilo oo ay ka noqdaan kambaniyo si hadda marka iyadoo awalba iska jiray shaqiyo fara badan iyo aragtiyooyin kala duwan hadda waxaa soo kordhay in la leeyahay hablo badan oo Soomaaliyeed ayaa la kulmaya tacadiyo oo dhinac kasta oo jirka oo sharafta oo maanta karaamada oo xuquuqda ah tacadiyadaasi waxaa soo geli kara waxa diinta islaamka ku banaan marka qayladaantaasi safarada Soomaaliyeed ayadoo qaar xogteeda runtii ay hayso oo dad runtii badan ayaga cabashadaasi iyaga ay soo gaarsiinayaan meelaha iyaga isleeyihiin waa ay mudan yihiin inaad
maartay la gaarsiiyo qoysaskooda ayaa anaga waxay nagu soo gaartay in maartay meelo adha iyo maartay gabdho Soomaaliyeed oo la geeyay inay arrintaasi si runtii ay u taabatay xanuun badan